رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. can anas bni malikin radia allahu canhu qaal qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam tasaxaruu faina fi الsaxuuri barakah متفق عليه. وفي رواية تسحروا ولو بالماء صححه الألباني. وفي رواية أخرى تسحروا ولو بجرعة من ماء صححه الألباني. وحال وريي أنس بن مالك رضي الله عنه إن يري وحير نبي صلى الله عليه وسلم سحورتا maxaa yeelay suxuurta barako ayaa ku jirta. bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo saaray. warin kale ama riwaayad kale ayaa waxay ahayd suxuurta biyabaha ku ahaatee. warin kalena waxa ay sheegtay suxuurta haba ku ahaato liqmo biyo ahe. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.